xadkan waxa la yidhaahaa waxa ugu khatarta badan aduunka. Dad badan ayaa ku dhintay iyaga oo doonaya inay soo gudbaan. Waxa uu kala badhaa laba dowladood oo mar isku ah hal dowlad. Waxa ay kala go'een muddo laga joogo 70 sano, iyagoo u qaybsamay diktaatoori iyo dimuqraadiyad. Muuqaalkeena maanta waxaynu diiradda ku saaraynaa kala go'ay labada kuuriya. Halkani waa halgan media. Magacayguna waa Axmed Maxamed. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. xilli lagu qiyaaso qarnigii 19aad, jasiiradda weelka kuuriya waxay ahayd hal dal, waxaana xukumi jiray boqortooyo ka soo jeeda isirka kuuriyiinta ilaa uu damac ka soo galay dalalka ajaanibta ah. Intaan qorxin dagaalkii koobad adduunku, waxa ay dareentay Imbiradooriyadda Jabaan inay u baahan tahay inay samayso dhul ballaarsi. Sidaana waxay ku gashay dagaalkii koobad adduunka. Waxay kala soo laabatay dagaalkaas iyadoo gacanta ku haysa waddamo ay ka mid yihiin Minshooriya, Taiwan iyo kuuriya ugu weyneyd. Waxa ay waday Jabaan dhul ballaarsigeedii ilaa ay ka gaadhay China, qabsatayna xeebaheeda bari. Arrinkaas oo kalifay inay maraykanka iyo xulafadiisu ka goostaan calaaqaadkii dowladnimo sida ganacsigii iyo wixii la mid ah, ilaa ay ka baxayso dalka Shiinaha. Waxa ay diiday Jabaan inay ogolaato shuruudaha loo soo jeediyey. Taa beddelkeedana waxay weerar ku qaaday mid ka mid ah maraakiibta dagaal ee uu Maraykanku leeyahay, waxayna door biday inay mar labaad gasho dagaalkii labaad adduunka. Laakiin markan ka soo horjeedka dowladaha la baxay isbahaysiga. Dagaalkaas waxay ka dhaxashay jab iyo burburka labadeedii magaalo ee ugu waaweynaa, Hiroshima iyo Nagasaki. Ninkii soo joog laga waayo, soo jiifaa laga helaa. Waxay sidoo kale ku weyday dhulalkii ay xoog ku qabsatay oo uu ka mid yahay waddanka Kuuriya. Markii uu dhammaaday dagaalkii labaad adduunku, dowladihii isbahaysigu waxay kala qaybsadeen dhulalka ay Jabaan xoogga ku haysatay. Shiinuhu waxa uu soo ceshtay dhulkiisii. Faransiisku waxa uu dib u gumaystay waddanka Vietnam, halka Kuuriya loo qaybiyey laba qaybood, koonfur oo uu maamulo Maraykanku iyo woqoyi oo hoos imaanaysa Midowgii Sofiyeedka. Marka la kala qaybsado waddan ama la gumaysto dhul, muddo ayuu ku jiri jiray gacanta gumaystaha. Kadib waxaa loo samayn jiray xukuumad midaysan. Laakiin Kuuriya sidaa maysan noqon. Waxay markaa dhexda u gashay loolan cusub oo u dhexeeyay labadii awoodood ee kala maamulayay. Waxaa ka dhex dillaacay labada quwadood dagaalkii qaboobaa ee ka dhashay dhulballaarsamayntii Sofiyeedka iyo iska caabintii Maraykanka. Kuuriyana waxay ahayd meeshii ugu horeysay loolanku ka dillaacay. Halkii laga samayn lahaa hal xukuumad oo midaysan, waxaa la magacaabay laba xukuumadood oo iskood u taagan si ay qayb uga noqdaan dagaalkii qaboobaa. Dhanka koonfur waxaa laga taagay xukuumad ka soo horjeeda shuuciyadda iyo afkaarteeda. Dhanka waqooyina xukuumad taabacsan shuuciyadda, sidoo kale diktaatoori ah. Labada xukuumadood waxaa ka dhex aloosmay colaad uu abuuray shisheeye iyo duulaanno aanu dabkoodu damayn. Kadib Maraykanku wuxuu arrinta u gudbiyey qaramada midoobay oo doorashooyin ka qabtay qaybta koonfureed, halka uu dhanka waqooyi diiday inuu ka qayb galo doorashadaas. Sidaana waxaa ku dhismay laba dowladood oo ku kala duwan fikirka iyo dhaqankaba, laakiin maalin isku ahaa hal dowlad. Sofiyeedka iyo Maraykankuba way iskaga baxeen, laakiin ma joogsan dagaalkii ee uuba sii kululaaday. 25 Juun sanadii 1950, Kuuriyada Waqooyi waxay dagaal ku soo qaaday xuduudda kala xeerta labada dowladood, waxayna ku siqday dhulalka Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Koonfureedna waxa ay samaysay iska caabin ilaa uu dagaalkii kululaaday, kuna khasbanaatay inay ka baxdo caasimadeeda Seoul kadib markay kaga dhinteen 44,000 oo askari. Maraykanku waxa uu xaaladda kala socday meel dhow, wuxuuna ku sameeyey faragelin isagoo soo maray fadhiga qaramada midoobay. Amarna waxaa lagu bixiyey xabad joojin, laakiin Kuuriyada Waqooyi dheg jala qumaysiin. Isla markiiba Maraykanku waxay weerar ku qaadeen ciidamada Kuuriyada Waqooyi, iyadoo ku khasabtay inay dib uga gurtaan dhulka koonfureed. Halka arrinku kuma ekaan, Kuuriyada Waqooyi waxaa soo gaadhay gurmad ka socda China iyo Midowgii Sofiyeedka. China wuxuu ku taageeray ciidamo, Sofiyeedkuna maadi ahaan, yacni hub, caafimaad, cunno iyo wixii la mid ah. Waxay ku guuleysteen inay jebiyaan ciidamadii Maraykanka, dibna u celiyaan kana saaraan dhulalkii waqooyiga. Sanadii 1953 waxa ay saxiixeen labada dhinacba heshiis ka tarjumaya nabadayn. Ilaa haddana waxa dhex yaala heshiiskii, laakiin waxay ku kala nool yihiin dagaal aan rasmi ahayn.
Hadda labada dhinacba waxa ay isku dayaan in dib loo mideeyo waddanka mar labaad, laakiin dhibku wuxuu ka jiraa yaa tallaabo soo qaadaya oo bilaabaya mideynta, sidoo kale madaxweynaha tanaasulaya. Waxay labada shacab ku kala nool yihiin kala qaybsanaan aan lahayn mideyn oo ay ka tageen gacmo shisheeye. Saadaashan waxay sheegaysaa qaldiyada dib u mideynta ahi inaan ahayn suurtagal guud ahaan. Intaas waa muuqaalkeennii maanta. Haddii uu ku qancin yahay ilaawin inaad like saarto, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo subscribe saaraya, siina share garee muuqaalka si aan u helno saaxiibo wanaagsan sidaadoo kale. Mahadsanid daawade. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.